waxaan jeclahay halka inaan dhowr erey ka idhaahdo waxa keliya oon saaka ka hadlayaa muddo badan doontaa waxa weeye habeen iyo maalin waa joognay laakiin kama hadlin waxaan uga hadli weynay gacan calool ku jirta bay ahayd wax ka soo bixi kara maanan ogeyn hadhowna intaannu ka hadallo wixii aanu nidhi waxaan ahay inay ka soo baxaan runtii waxaanu isnidhi cawaaqib xumo iyay muxuu ahayde mustaqbalkiina ku noqon laakiin saakay waxaannu ka hadlaynaa xaqiiqada meesha ka jirta cidda wax qabatay wixii wax lagu qabtay ciddii ku kaambeyn garaysay oo ay ahayd inay waxsan ku kaambeyn garayso ciddii dawladda isku dhereerisay oo ay ahayd inay horumar iyo muxuu ahayde mashaariic ay muxuu ahayde dawladda ay la barbar istaagto oo ku kaambeyn garayso ee hadalka ku kaambeyn garaysay runtii waxa weeye saakay waxaa muxuu ahayde halkan yaalla xaqiiqo cad halkan waxaa ka qayb galay dawladda iyo shacabkaba baa halkan muxuu ahayde arrintan ka muxuu ahayde iska kaashaday oo ka qayb galay waxaa ka qayb galay shakhsiyaad gaar ah waxaa ka qayb galay shirkado gaar ah waxaan jeclahay inaan muxuu ahayday inta maankayga ku jirta aan baalkeeyo dad badan oo halka muxuu ahayday dee mobilkooda facebooka dhigay oo dawladda yidhi waxba kama qayb gelin waxaan jeclahay inaan halka muxuu ahayday aan ku beyaamino qolo walba waxa ay leedahay daynan muxuu ahayday xaqiiqada isu sheegin dee wixii way khaldamayaan waxaan jeclahay marka ugu horraysa inaan muxuu ahayday aan soo saaro shirkadihii gaarka ahaa ee muxuu ahayday hawshaa qabtay waxaa ugu horraysa gaadiidka dawladdu leeyahay oo 12 gaari iyo hal cagaf gaadiidkaasi dawladdu hal abuurkay lahayd iyadaana sababtu lahayd ga'da baa ku qoran waa gaadiidka ka shaqeeya waddada ceel daahir muxuu ahayday iyo ceeri gaabo runtii waxay leeyihiin 12 gaari iyo hal cagaf maamulka shirkadda muxuu ahayday guddigaa wada oo sheekh fuaad ka mid yahay mas-uuliyiintiisa muxuu ahayday sheekh maxamuud xaaji yuusuf shaqaale muxuu ahayday xubnaha kale dhammaantood halka ugu mahad celinaya shaqadii ay qabteen iyo tay hayeen oo joojiyeen oo ay u arkeen inay tani ka qaalisan tahay dawladda hoose waxay leedahay hal cagaf agaasimaha guud ama hay-adda muxuu ahayday b s f oo halka iyadana aan uga mahad celinayo agaasimaheeda guud asad cusmaan waxa weeye gaari weyn iyo hal cagaf bay kaga qayb qaadatay hubaal hal gaari bay kaga qayb qaadatay waa shirkadda hubaal iyo hal cagaf bay kaga qayb qaadatay ninka le soolo 5 gaari runtii ninkaasu qandaraas buu ku jiray oo hay-ad kula jiray qandaraaskii suspend buu ka dhigay waa joojiyey wuxuu ka jeclaystay inuu halka gaadiidkiisa u soo wareejiyo oo profitkii uu helayey uu muxuu ahayde hakiyo maca naftiisii ninkaa waxa weeye shirkadda mas-uulka ka ah muxuu ahayde in muuse boqor ama ilmo muuse boqor oo dhan oo hantidaa wadaaga halkan iyagana waa uga mahad celinayaa 100% waa muxuu ahayde wax badan oo ay dalka ka qabteen baa jira oo waddooyina waxaa kaloo jira shirkadda albaashid ee dhismaha oo iyana hal gaari kaga qayb qaadatay oomaar oo hal cagaf ah alnajax oo wiish iyo cagaf leh rooble group oo iyana wiish leh intaasi waxa weeye waa qalabka halka lagaga qayb qaatay waxaa kaloo halkaa inii muuqda korontadii oo eenay oo muxuu ahayday dawladdu leedahay waxaa kaloo jira wasaaradda dekedaha oo laytinga wax ku leh waxaan aad iyaga halkan ugu mahad celinayaa shirkadda golis oo dhaqaale iyo qalabba iyana halka kaga qayb qaadatay waxaa kaloo ka mid ah dhagaxa concretka oo wasaaradda dekedaha iyo gaar ahaan wasiirku leeyahay 400 oo xabba ah waxaa halkan iyana aan aad rabo inaan uga mahad celiyo wasaaradda caafimaadka oo muddadii halka aynu joognay tiimkoodu halka uu joogay oo qorraxda ay nala fadhiyey oo haddii dhaawac ama wax qof soo gaaro iyana muxuu ahayday ka qayb qaadanaysay intaa haddaan idhaa waxaa kaloo halkan aan uga mahad celinayaa gabdhaha subax walba carruurtooda ka yimi ee quraacda iyo qadada iyo cashadaba intaa halka inoogu samaynayo shaaha casariyaha oo qaybtooda halka ay taagan tahay gadaasheeda waxaa taagan maamooyinka farxiyo maxamed caydiid baa taagan oo aanu xilli walba aniyo fuaad iyo iyadu xilliga ugu dambeeya aan halka ka wada reewixi jiray gabdhaha aanan tirin karin ee iyagu kijinka jooga runtii iyagana aad baan ugu mahad celinaya waxaan 100% u mahad celinayaa guddiga ganacsatada ah iyo guud ahaan ganacsatada guddiga ganacsatada ah uu hormuud ka yahay ama guddoomiyahoodu yahay sheekh fuaad
boqolkiiba boqol baan muxuu ahayde u mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa ciidanka amniga ee sugay inaynu meeshaana dhisno amnina noqoto haddana aynu doonta ku dejinno oo har iyo habeen maalintii la bilaabay ilaa maanta taagan runtii ciidankana muxuu ahayde boqolkiiba boqol baan u mahad celinayaa